Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa ka socda deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo maalmahanba ay xiisad ka jirtay. Dagaalka ayaa la sheegay in saakay uu ka qarxay agagaarka garoonka diyaaradaha Raskamboni oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ee isa soo dhiibay ay fariisin ku lahaayeen. Isgaarsiinta deegaanka oo go'an awgeed ayaa waxaa aad u adag in wax laga ogaado sida uu dagaalkani ku bilowday, inkastoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeynayo mas'uuliyadda dagaalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ku eedeysay in ciidamo uu si qaldan u adeegsanayo ay soo weerareen fariisimaha ay ciidamadu ku leeyihiin deegaanka Raskamboni. Subaxnimadii hore ee saakay ayaa koox ka tirsan ciidanka Jubbaland oo uu si qaldan u soo isticmaalay Axmed Madoobe waxa ay soo weerareen fariisin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay ciidamada uu soo weeraray Axmed Madoobe in ay ahaayeen ciidan halkaasi loo geeyay in ay kala wareegaan saldhigyo ay dhowaan ka baxeen ciidanka ADMIS, sidoo kalena isu diyaarinayay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga ayaa si gaar ah ula socotay qorshe uu Axmed Madoobe kula xiriiray kooxda Al-Shabaab, taasi oo keentay in kooxda Al-Shabaab u ogolaato in kooxo uu soo abaabulay ee duulaan ku ah ciidanka qaranka ay soo dhex maraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ficilada qarandumiska ah waxa uu ku mutaysan doonaa ciqaab sharci oo adag. Wasiir ku-xigeenka amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji ayaa dhanka dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ciidamadii ay u soo daabushay Raskamboni ay soo weerareen fariisimaha ay ciidanka Jubbaland ku leeyihiin duleedka deegaankaasi. Weerarkan oo ay ku bilaabeen diyaarad daroon ayaa ka dhacay duleedka magaalada, kadibna dagaalku waa uu ballaartay, welina wuu socdaa, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka amniga Jubbaland oo warbaahinta la hadlay, isagoona wax nasiib darro ah ku tilmaamay in la is-horkeeno ciidamadii difaaca ku wada jiray. Khilaafka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay kadib markii dowladda Federaalka Soomaaliya ay si adag uga hortimid doorashadii 25tii bisha Noofembar ka dhacday magaalada Kismaayo, dibna loogu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Wixii warar ah ee soo kordho halkan ayaa kala socon doontaan.